waa qaniiso marka futada laga was kadib wanaagtiisa wasa walaa ma qadjir hebelka qaniiska ayadoon dabada laga wasin kadib oo kacsana saasaa taa adeer ma kacsanaysid be nacala bahalka ay sheegayso hadda ka sheekeynayso waxa la leeyahay ku jirtaa bahalka ka sheekeynaysana waa bahalkii dheeraayo qalloocnaayo saas ay hadda dhinac uga leefaysay soo wax baanteen ma xidigada caanka ah ee looga haray baraburka iyo gabayada la xamaysan ee ku soo bandhigta baraha bulshada Malyuun Roble ayaa saakay aroortii waxa ay ku soo dheelmatay TikTok-gii iyadoo oo boorka dhulka la rafisay ninkeedii hore. Haddaba maxay isdhahayd wax afka laga sheegi kara ma ahan dhaqankana ka baxsan bal kaalay dhageyso oo daawo hal bil waa runtaaba kugu diidan taas tilka Malyuun Roble qaali waaye nin xuno biraqo kugu kala goynaa uraayo uf darad markii uu ka dambeys maxaan ku dhahay inta shubsi la soo aadnagta afkaaga urooyo iyo tanaagta dheefnika ka wareega shaashada ka wareega lagu dhooyo halka marka ay marayso Malyuuninkeedii hore asagana ma uusan ka xishoon oo faraxa iyo feedha ayuu lugaha kala baxay waxa uuna karbaash aad looga soo kaban karin madaxa oga garaacay waliba ayadoo xishood la ah oo aan lagu aqoonin dhaqanka Soomaaliyeed eraya aad looga yaqyaqsoodo oo aan dhagaha u roonayn kuwaas oo ku soo xasuusinayo jaahilnimo iyo dhaqanka fog islaamnimada haddaba waa kan muxuu dhahay asaguna ilaahaygi maxamed sameeyaan ku dhaartay sarifta markay ila soo fuulayso gabadhaasi أنا عادي يمسخش بكو قصبه يقبيسك هذين نلول تشتورت وحما يدي شيء جاي مدة كلا ناكتي أنا جمهرك حراشة يجدي تري إلى نولو mudooyinkii dambe waxa aad u soo badanaya dagaalada noocan oo kala ah kuwaas oo gadaasha ka riixaya dhalinyaro u awaawulan hab qabiilaysan haddaba in ay hab qabiilaysan u awaawulayhiin waxaad ka garan kartaa habka loogu jiibinayo ninkaani dhalinyarada laafka uu kugula jiro TikTok-ga bal si aayar ah u dhageyso waa maya ilaaha baan ku dhaartay gabadheeda Itoobiya joogta nin Itoobiyana dhalay waxay tahay talada la habboon hadba karbaashka ku soo laabtay Malyuun maanka dhaqanka noocan oo kala ah ay si badanaya sidee lagu soo afjari karaa ka bacdina hooyadii aabbahay caysay kadibna waa furay fiiriya hadalkina faantiin waa muhiim uu sheegay wuxuu taagan yahay hadalkaas marka waa xaqiiqda kaas hadda waa xaqiiq maxaa ka dambeeya waa xaqiiq ahaan barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa haddii aad nala joogto ilaa dhamaadka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelkeena like garayso oo share garayso oo si gaarsiiso dadka intiisa kale waad mahadsantihiin